Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waan salaam saaxiibayaal kusoo dhawaada channelkeena Somali Community College oo alaab uga barateen casharo ku saabsan barashada luqadda Englishka. Cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay conversation, wada sheekaysi. Ciwaankiisuna waa family. Family waa qoys. Family. Marka A iyo B sida caadan u ahayd waa laba qof oo isla hadlayso. Marka waan bilaabana insha Allah. How many people meeqa qof are there in your family ayaa ah qoyskiina? How many people meeqa qof are there in your family baa ah qoyskiina? There are 5 people. Waxaa waaye shan qof in my family qoyskiina. My father aabahay, mother hooyo, brother walaal, sister walaashay, and me iyo aniga. Does your family live in a house or an apartment? Does your family live qoyskiina miyay ku nool yihiin house guri or an apartment? guri dabaqa macnaha oo fille dabaqa inay ku nooshiin mise guri caadi iska caadi. We live aan ku nool in a house guri in the countryside oo ku yaalo magaalada caasimada ka baxsan. Countryside waa meesha rural area-ga oo tuulooyinka meesha beeraha ay ka baxaan ayaa la yidhaha countryside. Caasimadaha meesha ka baxsan. What does your father do? Aabaha muxuu sameeyaa? My father aabahay is a doctor, waa dhakhtar. He works wuxuu ka shaqeeyaa at the local hospital. Isbitaalka deegaanka. How old is your mother? Hooyada meeqay jirtaa? She is 40. 40 ayay jirtaa. 40 years old. 40 sano. When you are younger, hal sano ayay ka yar tahay than my father aabahay. Do you have ma leedahay any siblings? Walaal. Macnaha siblings markii wiilal iyo gabdho isku daray ayaa la yidhaha siblings. Do you have ma leedahay any siblings? Wax walaal ah. What's his waxaana maxay tahay magaciisa ama magaceeda? Yes, waan leeyahay. I do. Waan leeyahay. I have one elder brother. Waxaan leeyahay hal walaal iga weyn. David ayaa la yidhahdaa. And one younger sister iyo walaal hal gabar oo iga yar. Mary ayaa la yidhahdaa. Are you the oldest among your brothers and sisters? Are you the oldest? Kan u weyn baa tahay. Among your brothers, walaalaha and sister iyo walaalaha macnaha walaasha walaal gabdhaha ah iyo walaalaha wiilasha ah kan u weyn maa tahay. Are you the oldest among your brothers and sisters? Kan u weyn maa tahay walaalaha. No, maya. I'm not me. I'm the second child. Waxaan ahay cunuga labaad in my family qoyskeena. What does your mother or father muxuu aabaha or your father like? Maxay hooyada ama aabaha maxay jecel yihiin? My father aabahay likes wuxuu jecel playing football inuu ciyaarta kubadda cagta ciyaaro. And my mother hooyadana like waxay jeceshahay cook inay wax kariso. Do your parents let you stay out late? Do your parents waalidkaaga let you stay may ku ogol yihiin inaad banaanka joogto out late habeenka inaad soo daahdo ama banaanka inaad u baxdo ama soo daahdo? Of course not. Maya. dabcan maya. They always ask me mar walba waxay weydiiyaan to get home inaan xaafadda imaado before 10 p.m. afar saac habeenimo ka hor each night habeen kasta. Do you stay miyaad la joogtaa with your parent waalidkaaga? Right now hadda no maya, but I used to laakiin waan la joogi jiray. Does your family usually have a dinner? Qoyskiina casho may badanaa haystaan together. Does your family usually have a dinner together? Qoyskiina cashada may isla casheeyaan? Dinner waa casho. Usually waa badanaa. Yes, we do. Waan sameynaa waan isla casheynaa. My mom hooyadii always prepare mar walba waxay diyaarisaa delicious meals cunto macaan. Delicious waxaa la cunto so macaan oo soo carfaysa. Today the food is delicious. Dadada maanta cuntada macaan way carfaysaa waaye oo way macaanta. Marka hooyadii ayaa delicious meals noo diyaarisay for us anaga. Marka asxaabi waan salaamay qaybta video waan kasoo turjumay ayaan kusoo dejinayaa. Marka kusoo dhawaada laakiin intaan video in kale ku dubin laakiin la waxaa ka hilmaamin inaad subscribe saartaan asxaabi. Cashiro badan ayaan in soo wadaa iyo buugaag badan. Channelka description-kan waxaan in dhigayaa telegram linkiga qolkaasna hala soo galo cashiro kale ayaan ka bixiyaa. aad ayaan idin salaamayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. How many people are there in your family? There are 5 people in my family. My father, mother, brother, sister, and me. Does your family live in a house or an apartment? We live in a house in the countryside. What does your father do? My father is a doctor. He works at the local hospital. How old is your mother? She is 40 years old, 1 year younger than my father. Do you have any siblings? What's his or her name? Yes, I do. I have one elder brother, David, and one younger sister, Mary.
Are you the oldest among your brothers and sisters? No, I'm not. I'm the second child in my family. What is your father like? My father likes playing football, and my mother likes cooking. Do your parents let you stay out late? Of course not. They always ask me to get home before 10 p.m. each night. Do you stay with your parents? Right now, no. But I used to. Does your family usually have dinner together? Yes, we do. My mom always prepares delicious meals for us.